gudbayo waxaan uga socdaa gabadho ataan ahaa gayaankay way jeclaa marbuu guriyeka wataadi galaafate gacalo hooyoy gacalo laba goor dhinte godkiyo ilkaygu ridaa xaqa haddii afka la qabto uurkuu ka dilaaca kuwaalanambuur waxay noqotay bahalagareen dulmigu uu ku badan yahay inanta yarta ee dulmiga loo geystay ee kii gardarada geystay dad isku dayayeen inay ku howlanaadaan siday heegan ugu ahaan lahaayeen oo lurku uu geystay ay u qarin lahaayeen iyagiina ceeboobay intii garaadleena isdhiibtoo gabadhii miciin iyo la doona waxa ay mudan tahay hase ahaatee waxa soo baxay dulmiyo badan oo dareenku diidaya bal ka warrama haddaan idiin tilmaamo nin caan oo bulshada muuqiisa taqaan oo gabar soomaaliyeed oo sameeyo dhallaana ilmo xaaraan kaga dhalay dabeetana ku ankiraadii laysla gaalay heer DNA laga qaado dabeetana la daliishado caddayna looga dhigo inuu isagu yahay kii gafkaa geystay bismillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan soomaali weyn meel walbaa dunida ka joogtaan allah weyn waxaanu ka wada rajaynayaa caafimaad iyo cibaado suban iyo camal khayr mid kastoo muraad leh inay bahay muraadkiisa mid khayr ka dhigo kuwa xanuunsanna caafimaad taama siiyo kuwa geeriyooday jannadii udgoonayd hoy uga yeelo kuwa laga geeriyoodana samir iimaan ka siiyo kuwa dhasha haysta ee bahay dhasha u barakeeyo kuwa dhal sugayana dhal barakaysan ha siiyo lama horaan dalkeeni iyo nabad iyo dhammaan soomaali weyn oo midana allah weyn waan weydiisanayaa barnaamijka aan maanta idiin wado waa xogo waa inantii yareyd ee la dulmay iyo kuwa lalbuur xaaladeeda haddaba kii ficilada xun geystay waxaa jira kuwa taageerayay qadiyadii qabiil iyo waxaan qowl ahayn ku taageerayay hase ahaatee dhabtu waxay noqotay intii damiir lahay inay kacday waxaase isweydiin mudan sababta loo isugu dayay in la qariyo gabadha aragtida xun ee loo geystay sababtu waxay ahayd aniga idiin wadee in ceebo badani ay qarsoonaayeen dabeetana social mediaha ama youtuberada dadka ku jira ee reer magaranaysa ee Malaysia qaar badani iyaga ruuxoodu ay yihiin kuwa dhiiqo ku dhex jira sidaa daraadeedna ay ka gaabsadeen gabadha dulmiga loo geystay inay muujiyaan sababtuna waxay ahayd hadday muujin lahaayeen iyaga macna beeli lahaayo tooda ay soo bixi lahayd haddaba gacalow intiina hore u jeegay waxaad leeyahay barakoobo iyo fariista intiina dib nagaga soo biirtana subscribe waa noo dhiirigeline subscribe sii dhah haddaba waxa weeye barnaamijkeena aanu sii gudagalnay gabadhii yarta ahayd ee ayaan yar ahayd ee dulmiga loo geystay xaaladeedu waa midaan la socdo hoosna ula socdo ilaa ka gungaarana aana sina uga hareyn ninkana maqal ahaan iyo muuqaal ahaan wixii xog lama horaana muhiim ah inaan dibadda keeno hase ahaatee waxa muhiim ah inaan kolka aan xabsiga dhigo aad aragtidiisa iyo wixii ficil aan la horeyn bulshada aan u soo bandhigo haddaba aan idiin tilmaamayn ninku waa mid cararaya camalkiisuna uu noqday isqari intaad isqarin karayso waxaana dhaqan iyo diin oo lama horaana mar kasta kolka aad xaalad gelayso inaad ogaato labada dhinacba hadda korba waxa nin odaya ayaa waxa uu yimi nin dhaawaca kolkaas uu yiri waa la soo dilay kii garta qaaday intuusan garta goynba wuxuu yiri balkan kale taan arko halkaas u geeriyooday hadda waxaan isku day inaan ka dhalinyarada ah isagana eeda laga tilmaamay inaan xaaladiisa ogaado dhan kasta ahaatana waxa ii soo baxay inta tan muuqato macnaha xun ma aha in kaloo ka daran inuu mid sameeyay yahay gabadha yarta marka waxa jiray dad daliilay oo dhibaatada ay tabanayso eed ugu jeedinayay intii galaadlay waxa way ka hadashay intii kale ka aamusnayna macna uga aamusnay meesha Malaysia la yiraahdo iyadoo macna leban ka yiri asaatay waxay noqotay bahala galeen waxyaabo badan oo damiirku uusan qaadan karina waa la uu sheegay inay ka dhacaan haddaba kolka aan gabadha tan yarta xaaladeeda guur ma garanaysaa u kuur galay oo aan sii wareysay aan doonay wixii danba waxa ila soo gudboonaaday dad kale oo Soomaaliyeed inay ila wadaageen aragtiyo aan ka siinahay iyaga ruuxoodu qarsoona waxa jirta gabar Soomaaliyeed oo iyaduna dhalaan oo dhalinyaro ah oo inta la gariciyay oo ilmo laga dhalay dabeetana lagu ankiray oo kii ka dhalay muuqiisa aad wada garanaysaan hasaat inta aan ka hor dhicin xogtiisa oo ballaaran insha Allah dib baad ka arki doontaan oo waxaan idin la wadaagi doonaa aragtida iyo xaqiiqda dhabta ah iyo wax kasto daliil iyo cadeynteeda wadato haddaba tacadiga gabadha loo geystay waa la qariyay arintii la qariyana waxa weeye de waa maanta mid ilmihii oo bila abtirsiye ah dibadda uu marayo kuna guurseegtayo waa taa gabarnimadeedii weyday ninkii aragtida iyo ficilka liita sameeyana bulshada muuqiisa taqaano waa mid badana iska dhiga inuu maan iyo maran garanaysa ay maamuus leeyahay macnana oo la doono waxyaabaha kale oo cajiibka ah oo naftu diidaan Malaysia ka maqlay baa waxa kamid ah
gabdhaha kolka jaamacadaha loo soo diro in kuwa jaamacadaha u xareynaya ay yihiin danaystayaal kolka ay gabdhuhu yimaadaan asbuuciye iyo ka badan hotel ku haysta. dhaliilaha iyo iimaha iyo tacadiga halkaa ka dhaca wax tiri iyo cadad lagu koobi karo maaha. hase ahaatee mid iyo laba maaha wixii macnaha xun iyo waxaa diintu diida sameeya way badan yihiin. biidni illaahina waxay noqon doonaan kuwa aan muuqaaladooda iyo magacyadooda idinla wadaagi doono. se waxa dardaaran oo laba horaan oo aan waalid haddii ay wax maqlayaan aan u tirin lahaa oo tilmaam u sheegi lahaa, war dhashiina kolkaad qurba u diraysaan oo aad leedihiin waxa barteen soo inagu dad islaami inay nahay miyadan ogeyn oo gabari muxran la-aan inay socoto mamnuuc ay tahay. sababtuna waxay tahay ninka ragga ah ee dhurwaaga ah ee dibadda jooga gabadha dayn maayo. marka kolka aad gabar waxbarashaan u diraynaa leedihiin, war halka aad u diraysaan waa in ehl iyo qaraabe iyo qof aamina uu kaga horeeya. waxaa jira oo hubaalo Malaysia ku nool hablo badan oo dhibaato ku qaba, kaliya hablo maaha ilaa rag dhibanayaala. taasna waxa u sababa sahlashada la fududeysanayo marka hore safarku uu yahay. Malaysia tagaysa, waxbaad ka baranaysaa, UN-ta ku qaadaysa, waxa ka horeysa noloshu say tahay iyo waxa uu qofkaas halkaa kala kulmi doono kulku kali ku ahaado. intaaba haddii aan laga fakirin oo qofkii la diro dibindaabiyo waa hubaalo way u damayn. waxa ilaahay mahadiye fariintaydii inay soo gaartay kuwa Malaysia jooga oo markii hore dhaliil gabadha yarta u muujiyay, markii damase ma garanaysaa ay ogaaday xaqiiqda iskuna dayay gabadha waxay mudan tahay iyo dadaal inay la gaaraan. garashadiinu way fiican tahay, intii kaleete ee qarsoonna waxaan leeyahay qurunkaad qarinaysaan anaa dibadda keeni. waxaan nuxurkii ku xiray naxwaha hadalkaygu yahay. hadda ka hor baa nin muus iibsanaya oo muus doonaya wuxuu u yimi laba nin oo muus gaday. dabeeto labada nin oo muuska gaday midi 10kii xabo wuxuu siinayay 1000 shilin, kan kaleetana halkii xabo wuxuu siinayay 1000 shilin. dabeeto aadanuhu waa wada damaca wuxuu isiri kii muuska doonayay malaha kan halka xabo 1000 shilin siinaya wuxuu qaali u yahay qiimihiisa sareeya. kolkaasuu isiri bal 1000 shilin siisa hal xabo muusa. hase ahaatee kii 10 xabo muusa siinayay 1000 shilin ayaa ninkii intuu fiiriye ku yiri ma adigu arkaya ayaad aadaysa calashan ma adigu wax badan oo muusa arkayo ku helaya ayaad wax yar doonaysaa. wuxuu nuxurku yahay oo naxwaha hadalkaygu yahay anoo qaran arkayo iyo dhammaan Soomaali weyn qoys iyo qabiil ma laaban karo. kuwa youtuberada ah ee gabadha dumiga la doonana waxaan u tilmaamayaa waxa idin dameeya waa wax niyadiina ay ogtahay dulmi aad goysateen. YouTube ka dhexdiisa bodbodo marun banaanka ka helay. YouTube ka dhexdiisa bodbodo marun banaanka ka helay. alambe alam garide godiro rigle balawde barbaxayde alla tami allada la tami allada la tami allada. YouTube ka dhexdiisa bodbodo marun banaanka ka helay. YouTube ka dhexdiisa bodbodo marun banaanka ka helay. alambe alam garide godiro rigle balawde barbaxayde alla la tami allada la tami allada la tami allada. adanaha kolka oo wax u tilmaamayo iyo bulshada Soomaaliyeed muuqaalada iyo fiirooyinkiisa waxaad arkaysaa kanu haddii afka farta loo geliyo mid qaniinaya maaha. hase ahaatee dhaliga dhalaan buu ka xishoon waayay gabadhii maanta waa mid dibadaha iyo darbiyada wareegta guurna ka dheeraa ayaan kiray. alla arxan darana oo damir xuma hadduu og yahay ficilka liita uu sameeyey ma muuqisu dad horkeeni lahaa. kali kuma aha kurbada uu geysto kuwa ku lamaan. intaanu dib u kulmayno warsan iyo war khayr. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.